شمس روحي وحي ربي جنتي وحياة قلبي فرحتي القرآن حبي نور دربي وأماني. سلف كأني هره أما صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يدان رمضان هين بي وحي رادين جيرين وقادان أعماش وسلا وكلا فضل بدنت مركز حديث النبي أخرجه عليه الصلاة والسلام هذا كسا حديث بدن والصحابة النبي ويدين يسوع أي العمل أفضل وأي العمل أحب إلى الله وأن مدي يلا بطونا هي صحابة ويدينيس ما ها عمل كصوباني واكي عمل كصوباني سدو وكل فضل بدني النبي ويديني عليه الصلاة والسلام maxaa keenay inay acmaashu kala fadli badato waayo waxaanay rabin inay ku qancaan acmaasha inteeda hoose ee waxay rabaan inay ka faa'iideystaan acmaasha inteeda sare waxaynu isku dayi doonaa markaa inaynu waxoogaa ka tilmaamno maadaama bil ramadaan ugu jiro bisha ramadaanna qofka muslimkii uu mashquulun bilcibaada yahay qof cibaado ku mashquula uu yahay inaynu isku dayno weliba cibaado qura inaanan mashquul ku noqonine cibaadadu say u kala fadli badanta inaynu u goosanno inaynu ogaano maxaa fadli badan keebaa in la horumariya ay fiican tahay cibaadaadku waxay culammadu yidhahdaan waxay u kala fadli badan yihiin sababo badan marka la eego bixasabi alcaamil bay yidhahdaan way ku kala fadli bataan qofka camalka samaynaya laftiisa waxay ku kala fadli bataan bay yidhahdaan bixasabi alcamal oo camalka jinsigiisa iyo noociisa ku saabsan camalku nooca uu yahay iyo jinsigiisu noocuu ka siiyey yacni alajnaas walanwaac wuu ku kala fadli badan yahay wuxuu ku kala fadli badan yahay camalku zamanka la samaynayo wuxuu ku kala fadli badan yahay meesha lagu samaynayo wuxuu ku kala fadli badan yahay kayfiyada loo sameeyo wuxuu ku kala fadli badan yahay inta uu eegayay kii nebi maxamed uu sameeyey calayhi salaatu wasalaam ee mutaabaca uu la yimid wuxuu ku kala fadli badan yahay inta ikhlaas uu ku jiro ilaahay loo kali yeelay wuxuu ku kala fadli badan yahay xaaladda lagu sugan yahay markaasi wuxuu ku kala fadli badan yahay inta uu camalkani ka madhan yahay waxyaabaha camalka buriya ama naaqisiya ama waxyeela idan waxyaabo badan buu ku kala fadli badnaan karaa